wuxuu yiri irdaa gabay islaanu bariyan iguma ognayn aflagaadadiisa nabcay aana gudobeed aniga iyo doorna way saragnacayna ajashan ka gooyo iyo waxaan ku ijtihaadaya ajar baan ka deeyaa sidii ehelkii reer caad waxaan filayaa Soomaali inaad isnacdeen waxaan idin hor lahaa Ilaahay isnacinina oo ka daaya fadwada qabyaalada ka daaya Ismaaciil Cumar Geelle dagaalkaasi bareedha buu ugu jiraa arrinta iyada dhexdhexaad kama noqon karo waxaan rabaa inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan cid kasta oo warkani gaarayo dawladaha deriska beesha caalamka in duqeyntii ugu xumeeday xalay Tulaas caanood ka dhacday taasoo muddo soo socotay ayna ahayd tii ugu faraha badnayd xalayto fiidkii la bilaabay taasi waa qodobka kale waxaan rabaa inaan kelmad iraahdo rag fara badan oo Hargeysa ka hadlayay qolada gadxijis waxaan rabaa ee shalaytu hadlaysay wax garadka ah anigoo salaamaya inaan kelmad iraahdo ilmaadareyaalow anigu markii aan yaraa ee aan garaadsaday anagoo dhalinyaro geela waxaan ugu hees jiray hartiye saaq sidii hoban daba weyn hartiye saaq sidii loo helay loogu hadaliyo loogu heshiin waynu isleen jiray waynu heshiin jiray tol iyo derisna waana wax badanna waa ina ka dhaxeeya laakiin se markaynu isleen jiray waxaanu isku leen jiray waxaanu garaan oo ah kuraas geel iyo dal iyo damac inta way isku leen jiray maanta waxa aad laascaanood ugu soo duusheen ciidamadiinu ay laascaanood dadka ugu xansuuqayaan ma garanayno dagaalka qolada habar awal oo hogaaminaysa waxa ay ku dagaalamayaan waanu garanaynaa waqtigii mudaxileedkii kursiga ay hayeen baa dhamaaday waxay siyaasadii ka gashay in laascaanood dadkeeda la duqeeyo oo la xanaaqo iyagu waxaynu ku dagaalamayaan waanu garanaynaa laakiin qolada gadxijis waxaanu isniri marka ay qolada hawar awalistiri ku muddo kororsada xansuuqa iyo garaacista laascaanood saaqna ku kiciya mucaaradkana iskaga jebiya haboonidiina inaad gara weydaan baan filayaa nin la oran jiray maaweel baa nin barhayare la yiraahdo in adeerkiisa Sacuudiga uga tago markaas wuxuu damcay inuu boqor ka dhigo deedna maalintii dambe isagoo tijaabinaya wuxuu yiri maxaan ku qabtay markaas uu shaar iyo surwaal qurux badan iibi maaweel wuu gabiyo wuxuu yiri ha cubtam wuxuu caan buu ahaa baa aqalkii bari cimaamad buu qaadan jiray maalin la iscunay ha cubtam aduun baan lahaa caawin iyo laano waxaan kugu caqiibayn lahaa caynabo farasay markaad cugatay shaar iyo surwaal sida caruurtu la canuufadii dib baan kaaga laqay kaana cawdsaday qolada gadxijis waxaan leeyahay sharito hadlasay waxaanu islahayn markii qolada habar awal ay istiri ku muddo kororsada in laascaanood la duqeeyo oo la xansuuqo baasha way fahmayaano tarahooda ilaashanayaan waxay oranayaan hadii baydankeeda leeyahay war dagaalkana la joojiyo oo ka daaya magaalada xansuuqa systemkana mudaxileedkiisii waa dhamaaday doorashaha la qabto oo Hargeysa doorashaha laga qabto anaga doorasho naga suuroobi mayso waxa wayna kama dhaxeeyaan oo door dhexdhexaad ah bay qaadan lahaayeen oo maanta hadii baydankeeda leeyahay tarahooda ilaashan lahaayeen haddii aad gooja cadde iyo odagoy iyo madaafiicda nagaraacasa aad shiishirida iyo cabeeye aad ka wada noqotaan waa nasiibkiin gadxijis intaasaan leeyahay halka idin dhaafi maayo culimadii hadlaysay waxaan leeyahay waxaan filayaa Soomaali inaad isnacdeen waxaan idin hor lahaa Ilaahay isnacinina oo ka daaya fadwada qabyaalada ka daaya taana intaasaan leeyahay dawladaha deriska iyo beesha caalamka iyo dadka xabad joojinta leh xabad joojin hal la sameeyana waxaan leeyahay 1922 ayaa ciidan Ingiriis iyo Isaaq iyo Xabashi iswataaniman ugaadeen oo awaare degan ku duuleen dagaal fara badan baa dhacay oo nimankii ugaadeen way isdifaaceen iyagoo lagu soo duulo lagu gardaran yahay ugaadeenkii la yiri xabadda joojiyo arrintii bay aad uga yaabeen deedna nin ugaadeena gabay ku jawaabay su'aashii ku filan wuxuu yiri irdaa gabay islaanu bariyan iguma ognayn aflagaadadiisa nabcay aana gudobeed aniga iyo doorna way saragnacayna ajashan ka gooyo iyo waxaan ku ijtihaadaya ajar baan ka deeyaa sidii ehelkii reer caad ragale xabadda hal la joojiyo war anagu xabad ma wadno ilmaadeerayaal anaga iyo ciidankaasi way saragnacayna waxay laayeen maatadayadii gabdhahayagii culimadayadii aqoon-yahankayagii cuqaashayadii waxa la dumiyay magaaladii
xabadii baan ugu socotaa annagii ciidankaasi waanu kala dhimanay waanuna is aragnacayna suurtagal ma aha gooja caddeeyagoo jooga ama adhi caddeeye jooga ama canjiid jooga ama tuulo samakaab jooga ama yagoori jooga ama guumays jooga inay suurtagal noqoto inay xabaddu istaagto waayo intaaba waxaa degan dadkii ay xansuuqeen waxaan rabnaa ciidankaa in oog la geeyo marka oog la geeyo ciddii qabanaysa reerkaa iyo dadkaa waqooyi ka soo duulay diyaar baanu annagu duulimaadna maahi nabadna waanu doonayna taana intaasaan leeyahay waxaan rabaa inaan kaloo caddeeyo ismaaciil cumar geelle dagaalkaasi badheedha buu ugu jiraa arrinta iyada dhexdhexaad kama noqon karo hubkiisii iyo raggiisii iyo kaartadiisii iyo diyaaradihiisii basaasiinta wax basaasayey iyo khadkii telefoonada wax ugu fududaynayo intaba dagaal buu kaga jiraa ismaaciil cumar geelle arrinta annaga iyo ciidankaana dhex marasa iyo siyaasaddaas hargeysa dhexdhexaad kama noqon karo intaasaan ummadda u sheegaya wabillahi tawfiiq dadka faraha badan ee reer waqooyiga ah ee dhaqan leh ee siyaasiyiin leh ee culimo leh ee aragtidooda iyaguna cabiray ee aan ahayn dadka qabyaaladda iyo caadifadda iyo sida kooban u fikiraya lambar 1 boqor cismaan buurmadow aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan kale u mahad celinayaa xildhibaan axmed khaliif oo isna sida xaqiiqda u hadlay oo waxa jira ka hadlay oo maanta qofku waxa loo baahan yahay inuusan qof beena noqon wuxuu yahay haddii ay cadaato oo haddii ay cakiranto arrin ay caqdiga wada codkar kale u baahan tahay oo calool adag waxa maanta isaaqna ku filan annagana nagu filan ninka ilaahay ka baqaya ee raganimada leh ee fikirka caadiga abaari kara ee ku dhiiran kara laakiinse odayaal in la soo ururiyo aan maanta oran karayn systemka wardadka ka daaya garaacista iyo xasuuqa ka daaya waana wax suurtagal ma noqonayso shirkadaheeye oo isna kelmadda xaqa ka hadlay aad iyo aad baan ugu mahad celinaya iyo cid kasta oo ama aamusan oo cabsoonaysa ama hadashay oo fikirka xasuuqa ay wadaan systemkan hargeysa ka yimi ka soo horjeedaan aad iyo aad baan ugu mahad celinaya